السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada oo maal maxmuud cashkan waxaanu ku baran doonaa tobankan erey meesha noo saaran ereyga koowaad irritable waa qof dhaqso xanaaqay somebody who is easily annoyed ayaan dhahnaa irritable yes ereyga labaad ivy waxaa la yiraahdaa si aad u fahamtid geedo waxaa jiro yani markii ay korayaan aanan iskoodu istaagi karin marka darbiga qabsadaan ama shabaq uu qabsadaa saas ku koraa geedaha noocaas ayaa la yiraahdaa ivy. Yes, ivy. Erey saddexaad lag waa to fall behind, to delay camal. Yes, for example haddaan ku dhaho don't lag behind the class, yani classka ka harin. Ama the internet may lag, internet may delay camal. Waxaa laga yaabaa inuu daaho. Marka daahitaankaas ama ka haridaas ayaa la yiraahdaa lag. Okay, ereyga afraad law waa sharci. Simple, sharci. Yes, don't break the law, sharciga ha jabin. He broke the law, sharciga ayuu jabiyay. Past tense-gada waxay noqonaysaa the past tense of break becomes broke. He broke the law. Yes. Ereyga shanaad leash waa xarig yar ee la isticmaalo ee xayawaanka markii aad controleyso. Tusaale ay hadaa wadatid rhino ayga qaylinayo. Okay. Xarig yar ee ayga yani lagu controlo ama ay ma ahan lo'daba lagu controlo ama dameerka ama faraska ayaa la yiraahdaa leash. Simple. Ereyga lixaad lid waa dabool. Yes. daboolka abriiqa, daboolka digsiga, daboolka caagada iyo dhamaantood lid. Okay, ereyga toddobaad lining waa the inner layer of something. Yani waxa gudahooda the inner layer. Yes, layerga gudaha ayaa la yiraahdaa lining. Yes, the lining was torn. It means the inner layer was torn. Okay. Ereyga siddeedaad longing waa wax markii aad u rabtid, waa wax markii aad hamuun u qabtid. Okay? He had for example he felt longing for home. Guriga ayuu hamuun qabo ama cidooda. Yes, he felt longing for home. Yani gurigoodu aad u rabo waay. Waxay isku macno yihiin yearning ama desire. Okay? Ereyga sagaalaad majestic waa wax aad u qurux badan. Yes, we saw a majestic palace. Waxaynu aragnay qarni aad u qurux badan. Ereyga tobanaad marshal waa wax la xiriira ciidanka. It's related to military. Yes. Martial law waa yani sharci u yaala military. Martial just anything that's related to the military. Ama hadii kale for example waxaan leeyahay he studies martial history. Wuxuu bartaa taariikhda la xiriirta military waxyaalaha noocaas. Ashkan intaas ayuu ka egyahay. Keep learning and have a good day. Bye bye.